mar walba waxay dhihi jirtay sidaad adiga tahay ayaad farxad ku helaysaa anigana hooyaday waan rumaysnaa ayadana aad ayay ii jecleed anigana sidoo kale waan jeclaa laga yaabaa farxadda inay tahay dareen gudaha ku qarsoon qof markii alla wadaagtana bannaanka u soo baxa waqtigan waa midka ugu quruxda badan ee noloshaada aad qaadato farxadaha qaar waxay ku qarsoon yihiin cayaaraha iska yar markii aad qof la wadaagtana way ballaaranaysaa laga yaabaa lama filaan aad uwadkaaga u samaysa farxaddiisa inay ku jirto farxaddaasna uusan weligiis ilooweynin aniga mid makuu sheegaana farxaddeeda waxay ku qarsoon tahay farxadda hooyadee waxay ahaataba dunidan waxaa sax ah inaad dunidaada adiga dhisatid oo hooyadaas iyo gabadheeda nolosha farxadda ay ku noolaayeen waa mid intay indhahooda ka soo bidhaantay sida iftiinkoo kale loo arki jiray sida anigii gabadheedoo kale markii ay duuleyso waxay dhihi jirta hoos fiiri markii hoos fiirisana waxay arki jirtay geedkii oo weynaay asagoo yariis ah markaas kadibna waa shimise waxayna ku dhahday geedka markii aad kor ka arkaysid sidan ayuu u yaryahay sheekadaanna waxaad ka ogaan kartaa farxaddaada inaad adiga samaysan kartid هاي أنا قاعد إيش بتقانا إنا إسكابو بكبرن هاي وايا gabadheeda ka soo qaad haddaba baale inaan leedahay haddii aad baalan lahaan lahayd oo duuli lahayd maxaa samayn lahayd ii sheeg meel qurux badan aad tagi lahaay waa ku duuli lahaay gabarne hooyo oo ani ariga kaliya aan nahay haye maxaad ku samayn lahayd markaas meeshaas tartiimaa ku yaalo beerana waa ku yaalaan aadna waa qurux badanta markaas kadibna jawiyaa ku qaadanaynaa adigana micloonays mana ooynaysid gabadheeda maxaad sidaas u dhahaysaana maxaa yeele markaan hurdaay oo soo kaca agtayda waa kaa waayo hooy markii aan ku soo raariyana waxaan arkay adigoo ooynaysid maaho hooy ii sheeg yaa waay qofka adiga kaa murdiyaayo ii sheeg hooy aabhee miya aabhee hadda maba kaa murdi karo basoma sababtoo ah wuu dhintay yaa waay marka qofka kaloo adiga kaa murjinaayo gabadheeda murug ma aha hooyada way daashay aniga daalka oo keliya waa mooye wax murugaya ma hayso hooy waay haddii hawsha kaa barata aniga ishaag waa ku caawinayaa yaa arrin ma ooynaysid marba haddii aan adiga ku haysta gabadheedii buur xitaa haddii dusha laigu xiro waan qaadayaa maxaa yeele waxaaba igu filan mataqaanaa intaan adiga ku haysto haye waxaan ku dhihi jiray maxay ahaayeenna anigii adiga qalbiga ayaan ka midaysannahay gabadheeda ani adig qalbiga ayaan ka midaysannahay mar walba jaceylkayga quruxdeeda nolosheeda gabadheeda aadan kuu jeclaa ninkan hadda waan seexanaynaa beri interviewgaana sugaayo kaala gabadheeda si shimbirtoo kale u soo duul baraawo nabad hay gabadheeda oo balaa keenhay okiyaalka kadibna seexaya naga daa gabadheeda dhibka ay
waa ware wayna soo ogaadeen bas waa waynoo dhammaatay Neva. Orodaya xageed orod ku gaaraysaa ma waxay kula noqotay inaanan ku soo gaaraynin fiir hadeertaan meeshaan adii keentay waxaan horey aniga kuu dhahay tig taag tig taag waa su'aalaysaa mooye igama baxsi karaysid qaabaan wax kugu sharax maba garanayo ninkaaga lacagtaan ku lahaa godka ayuuba la aaday soo maha lacagtaan ninkaaga ku leeyahay hadda kadib adaan kaa raba adaan ii gudayo muddo 48 saac ayaan ku siinayaa imase jeer ayaan kuu sheegay 48 saacadood iska daayay inta nolosheeda ka dhiman xitaa ma bixin karo aniga waxaan ku siiyay 48 saacadood oo keliya lacagteeda saacadda sidaad igu keeni weydo dhibka aduu kuu yaala muddadan ku siiyey waa 48 saacadood xusuusno waqtigaagana hadda ayuu biloway haye wuu bilowdayaa tig taag tig taag tig taag tig taag tig taag haye waqtigaaga wuu u dhammaaday marwa Neva Neva hooyo aniga waa cabsanooyaa gabadheeda ma xasuusataa sheekada ugaarsatada kuu sheegaya waayahay sheekadaas yaa guulaystayna boqoradda iyo gabadheeda ahayna keenahay gabadheeda boqoradii gabadheeda aniga aad soo maaha hooyo oo kiyaalahayga Neva waan ku imid Neva hadda waxaa loo baahan yahay boqoradii gabadheeda meelaysan cidna ka arkaynin in ay ku dhowtaan haydhe waayahay nabad nabad tartiib 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 gabadheeda hooyo boombilahaygaa soo iloowe way baxsadeen miyaana gabadheeda nakeen gabadheeda soo orod dhaqso soo carar gabadheeda waa ku baryaaya carar
soco gabadheeda aniga hadalkayga si fiican u dhegeysa dadkan ciyaar ayaan la ciyaaraynaa adiga meeshan ayaad ku dhuumanaysaa anigana ayaga ayaan qayaanayaa gabadheeda waan ku baryaa meeshaada ha ka soo bixin haddii kale geemka waa nagala guulaysanaya waa tahay orod neva gabadheeda darteedu waa carar dhaqso dhaqso gabadheeda kaala gabadheeda macaanta badneede waa fiicantaa soomaa gabadheeda hooy ciyaarta hadda waa ku guulaysana maaho anagaa guulaysanay hooy hadda xaggee aadaynaa annaka ii sheeg gabadheeda quruxda badneed hadda waan baxaynaa magaalo kale iyo qasri kale ayaan anaga degaynaa waayahay macaantadeeda adiga nasiibkayga ayaaba tahay halo waan ku maqlaa maxaa dhahde cashada kadib miyaana waayahay haddii ay muhiim tahay dhibaato ma laha maalinta ku wacnaato gabadheeda qurxi badneed oo soo kacaysa maaha subax wanaagsan wax la mid ah hooyo ma gaajaysan tahay weliba sida waraabihii oo kale fiire gabadheeda anigana waxaan kuu keenay maka heshay hooyo hooyo mala socotaana markii aan hurdaayay aniga waan riyoonaye riyo xun aan arkay maxaa ku riyootayna waxaa ku riyooday ninkii xumayne oo anaga na burshanayo kadib arine markaas meelaa igu qarisha waxaana idhahday waa kuu soo laabanaya laakiinse sidaa kuu sugaayo ari maba ii soo laabanin hooyo waa kuwaayo ka waran gabadheeda macaanka badneed kuma cidleenaayo wax kasta ayaa ii tahay lagama yaabo inaan ku cidleeyo sidoo kale adiba wax kasta ii tahay gabadheeda quruxda badneed nakeen isdiyaari waan baxaynaa aniga soo baxa laakiin hooyo xaggee aadeenaane suldaamadeeda interview ayaan leenahay haddana waan dhaqaaqaynaa gasho okyaalkaaga beelo boorsadana adiga iskale gasho nabadtay hadda waan baxaynaa dhaqso gasho boorsada keen gacanta kale soo dhiib
oo bla beelo nabad. macaan badan quraac ayaan kuu diyaariyey. inaad diyaariso lama baahnayn quraac ma baahni. maxaa dhacayna kafeyga adigoo baahan miyaad cabaysaa? taas caafimaadkaaga ayay u daran tahay. laakiin xabiib waan kuu cabsanayaa. ha ii walwalin aniga yarmihii waan iska adkaa. xabiibi adiga wax badanaad shaqaynaysa soo maaha. xabiibi inaan kaa taxadaro soo maahan ilaa noloshaada aniga ayaa ku jiray. xitaa haddii aad ilowdo taas waajib ayaa iga saaran. maxaad ula jeedaa? laakiin adiga inta badan waa iska mashquulsanta oo waad ii ilowdaa. waan ogahay arrintan inay dhibaato badan tahay balse waa inaan u dulqaadanaa anaga. ma ogtahayna xabiibi dhar aad u shidan inaan diyaarsado dadka markayna arkaana wayn ugu daqramayaana ku dhahay. ilaa heerkaas inaad diyaariso looma baahnaynba. maxaa dhacay macquul miyaane? waad ogtahay aniga goobtaan ayaan leeyahay. weliba caawa habeen muhiim ayay ii tahay sababtoo familkaaga ayaan la kulmayaa. waan xiiseynayaa inaan arko dadkana hooyada waxyaabo badan ay ka sheegayeen moogtahay. maxaa hooyadii laga sheegaya? maya macaana wax xun ma laga sheegaynin. micnaha dadka waxay dhahayeen marwa turkaan aaday u adag tahay in la soo jiidana ma fududa. tamaam hadda way caddahay sababta caawa ay qaasato. runtaa waxay tahay hooyo turkaan xayndaabkeeda in la gala inay aad u adag tahay. qalbigeeda iyo gurigeeda cidna uma ogolaato. laakiin taas inay ka walwasho looma baahnaba. sababtoo ah lama kulmaysid adiga. maxaad ula jeedaa adiga? maxaa dhacayna familkaaga iyo asxaabtaada inay bartama ratid miya? maxaan xiriirkeena u qarinaynaa annaga? horaan kugu sheegay dhalanteed inuu xaggayga ka yahay xiriirkan adna waad ogolaatay. haa laakiin adigana maanta oo dhan fiiri quraac iyo balaayaad diyaarinaysaa sidii inaad xaaskayga tahay mar walbaad iga soo horbaxaysaa. imuuqgoy qof yahay intaanan kugu dilqin. albi waa ku baryaa istaag albi. subax wanaagsan mudan albi. wanaagsan maamule waxbaan rabaa inaan kaa codsado. soo daa mudane. dabcan waad aragtay qumayada aniga hadda ii timida qolkii la joogtay. haa mudane. hadda kadib waxaan kaa codsanayaa inaadan iisoo fasxin adoo wax amaraa iga haysan. waaya mudane sidaa jeceshaa noloshaada adiga ayaa xaq u leh. mahadsanid. adiga mudan. gabadheedu waa halkan. hooy dhegeyso waxba ha ka walwalinya waa huwa ku dhamaysan shaqo waad ka soo helaysaa. waan rajeynayaa nakeenaya marka. naga raali noqdo ilaa hadda maqaayadda lama furin. iga raali noqo neeva jamboolaad ayaan ahay waxaan rabaa jiif inaan gacanyeero u noqdo. laakiin aniga ilaa hadda warbixintaada ima soo gaarin. yaa ku sawaca adiga ii sheegba. haye su'aalahaaga miyaa mar kale bilowday? anigaa wacay tamaam. soo dhowow neeva. waan dhowaha waan ku salaamay. shaqadeedaan qabsanayo qoftaan haddii booska la horgeeyo hadhowta muxuu dhihi karaan taas ma ka fikirta mise ma is weydiisay. jiifka arrimeedu wuu ogyahay arrintan aniga xalinaya adiga shaqadaada qabso okay misku raacne tamaam. haye hayaal shimbirteeda run ahaantii aad iyo aadaan kugu xiisa kaali isii dhabanka. haye ma fiican tahay? laakiin xoogaa walwala iska jirano. haye shimbirteeda hadda hooyadaada ayaan wadaa adiga isii fadhiiso kusoo laabana tamaam. waayahay aniga tayra ku mashquulsanaa idinka orta waqtigan iska soo qaataa cabsanina. okay gabadheedii hooyadaada shaqada allah fududeeyo. ahay gabadheedu waan kusoo laabanaya. nasiib wacan hooyo. nayfa inakeen. haye ma sii baxnaa? aniga aad
aad ayaan u walwalsanaa maadaamaad i caawisay waan kaaga mahad celinayaa farxad maya dhibaato ma lahan taas ma ogta haddii aadan adiga ahaan leh meesha inaad imaada xitaa ku maryoon lahayn yaaqi waad ka badbadinaysaa gabareey maanta waxay noo tahay anaga maalin muhiim ah okay weliba maqaayadda caawa martiqaasa imaanayso beritone waa la furayaa ma fahanti waan ku baryaa arrintaas muhiimka aniga ha igu soo dhex darin isdeji wax sidaas u weyn ma jiraan anigana si fiican aan ku aqaanaa tamaam xirfadaadana waa aqaanaa lagu daray howl badan markaa qabatidna dadkao dhan way ku arkayaan jiifka dibna waxoogaa yar waa nin la yaab leh waxay ahaataba hadda u tageynaa asigna waa ka jiifka dim ah kadib ergaasa maahana